go'aanka ka bixitaanka ciidankeena Soomaaliya kaliya go'aan kama gaari karto ee dalal badan ayaa go'aankeeda leh ciidankeenana xilli kasta ay doonaan ayay gudaha Soomaaliya gali karaan iyadoo aysan cidna amar ka qaadanaynin waa go'aankii ugu dambeeyay ee ka soo baxay dawladda Itoobiya faahfaahin la xiriirta ayaan muuqaalkan idinku soo koobi doonaa maxay ka dhigan tahay hanjabaadan cusub ee dawladda Itoobiya ka soo baxday dawladda federaalka Soomaaliya maxaa looga fadhiyaa waxaan ahay Yuusuf Maxamed Axmed haddii aad igu cusub tahay fadlan ku soo biir page-kayga oo ka mid noqo saaxiibada ugu xiran si aad halkan ugala socotaan warbixino muuqaalo had iyo jeer aan halkan ku soo baahiyo dawladda federaalka Itoobiya ayaa shaacisay go'aanka dawladda federaalka ee in guud ahaan dalka laga saaro ciidamada Itoobiya ku sugan ee qaybta ka howlgalka midowga Afrika ee ATMIS marka la gaaro December dabayaaqada sanadkan 2024 afayeen u hadlay dawladda Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in go'aanka ay ciidanka Itoobiya looga saarayo Soomaaliya aysan kaliya lahayn dawladda federaalka Soomaaliya balse ay go'aankaasi ka gaari karaan dalal dhowr ah oo ka mid ah kuwa midowga Afrika iyo sidoo kale golaha ammaanka ee qaramada midoobe oo si toos ah u taageerta howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ee Soomaaliya howlgalka nabad ilaalinta ee aan ku joogno Soomaaliya ma ahan mid kaliya quseeya dawladda Soomaaliya waa mas'uuliyad caalami ah waa howlgal uu maamulo midowga Afrika oo taageero ka helaya qaramada midoobe sida daraadeed marka ay arrimahan noocan yimaadaan geestayada si rasmi ah ayaan uga wada hadlaynaa waxna waa la iska weydiinayaa sida aan ku sheegay codsiga ma ahan mid ka imaanaya Soomaaliya oo kaliya hadiise uu yimaado marka aan ka soo baxno mas'uuliyadda nala saaray beesha caalamka hadii ay doonayso joogitaanka ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya diyaar ayaan u nahay in aynu sii joogno oo aan gudano waajibaadkayaga afayeenkan u hadlay dawladda Itoobiya waxa uu sheegay in xilli kasta ay gali karaan ciidankooda iyadoo aysan cidna ka qaadan fasax gudaha Soomaaliya wuxuuna sheegay in ay degi karaan aag kasta oo ay u arkaan in ay ka difaaci karaan amniga dalka Itoobiya sida uu shaaca ka qaaday sida aad og tahay arrimaha ka jira Soomaaliya hadii ay halis ku noqonayaan amniga qaran ee Itoobiya ma ahan mid ay cid fasax uga qaadanayso waxa aan qaadeynaa talaabo noo gaar ah hadalkan ka soo baxay afayeenka u hadlay dawladda Itoobiya ayaa ka dhigan in Itoobiya ay ku hanjabayso in ciidankeeda aysan ka saareenin Soomaaliya go'aanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayuu burinaya qorshaha cusub ee Itoobiya ay warkan rasmi ah ka soo saartay xilli dawladda federaalka Soomaaliya kol hore la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu shaaciyay in ciidamada Itoobiya ku sugan Soomaaliya gabi ahaanba laga saarayo tani waxa ay dab ku sii shidaysaa khilaafka ka dhaxaloolsan dawladaha Itoobiya iyo sidoo kale Soomaaliya Itoobiya waxa ay wali ku mintidaysaa ama ay ku adkeysanaysaa inaysan sinaba uga laabanaynin go'aankeeda heshiiska ay la gaartay maamulka Somaliland ee qoseeya arrimaha badda kaas oo Itoobiya sheegtay inay u bedeli doonto heshiis rasmi ah si ay gorgortan ugu la gasho dawladda federaalka Soomaaliya markuu uu adkaado xiriirka Itoobiya iyo Somaliland waxa ay ku doorsanaysaa in ay heshiiskan u rogto is-afgaradka ah heshiis rasmi ah inay aqoonsi ka hesho Itoobiya halka Itoobiyana ay riyadeedii in ka badan hal qarni ay naawilaysay in ay bad hesho ay markan u muuqato mid ay ka go'an tahay lista badda balse Itoobiya waxa la aaminsan yahay in riyo maalmeed ay ku jirto Somalilandna hoggaankeeda qarashka tuurnimo ay ku dhaqmayaan ilaa dhamaadka muuqaalkan hadii aad ila soo gaarto waa kaga mahad celinaya nabadgelyo